السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan asxaabta ku xiran janalka Ilyas Daacad soo dhawaada. Maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa qiso la yaab leh. Aabe gabadh uu dhalay looga helay khamaar iyada oo 1 sano jirta, haddana 17 sano jir ah oo la isku haysto. Nin adduunyo joogo maxaa aragti ku laaban. Aabe u dhashay dalka Pakistan ayaa intii uu noolaa waxaa looga helay khamaar gabadhiisii oo markaas 1 sano jirtay. kadib markii uu iska bixin waayay lacagtii khamaarka oo uu ka helay nin ay wada ciyaarayeen turub. Aabaha oo awoodi waayay inuu deynta iska bixiyo ayaa kula heshiiyey ninkii khamaarka ka helay inuu siinayo gabadha yar ee guriga u joogta haddii uu bixin waayay deynta lagu leeyahay, wuxuuna ka aqbalay ninkii codsiga loo soo jeediyey. Ninkii gabadha turubka ku helay ayaa oggolaaday inuu sugayo ka qaangaarayso ilaa inta ay ka qaangaarayso, balse odaygii ayaa geeriyooday. Haddaba ninkan Bakistaaniga ah oo lagu magacaabo Haydar ayaa xiriir toos ah la soo sameeyay hooyada dhashay gabadha khamaarka lagu kala helay, wuxuuna ku wargeliyey maadaama wakhtigan ay jirto 17 sano in lagu soo wareejiyo gabadha loona guuriyo sida ugu dhaqsiyaha badan. Rashiida Cumaraani oo iminka qaangaartay iyo hooyadeed Noorani ayaa arin lama filaan iyo yaab ku noqotay. Waxayna ninkii kula taliyeen inay siinayaan lacagtii deynta ahaa, balse wuu ku gacan seeray, wuxuuna wacad ku maray inuu afduubanayo Rashiida hooyadeedna dilayo haddii aan la oofin ballantii ay kala saxiixdeen aabaheed. Odayaal degan magaaladaas oo ay qisadani ka dhacday ayaa talo ahaan ku soo jeediyey iyadoo la raacayo xeer jajabka u yaal dhaqanka dalka Pakistan in gabadhan loo guuriyo wiilka uu dhalay ninkan oo lagu magacaabo Cabdulqani, da'diisuna tahay 23 sano, maadaama odayga gabadha turubka ku helay uu yahay 65 sano jir. Rashiida Cumaraani ayaa codsi u soo jeedisay dhammaan muslimka adduunka ku nool iyo dowladda Pakistan inay u soo gurmadaan oo ay ka badbaadiyaan guurkan aynan doonayn. Taliyaha ciidanka booliska ee magaaladaas Irfan Bhutto oo iminka gacanta ku haya kiiska dacwadda ayaa ballan qaaday in dowladda Pakistan magangelyo siin doonto gabadhan dhibanaha ah iyo qoyskeeda, wuxuuna u sheegay inuu dacwadda ku soo oogi doono Master Haydar iyo wiilkiisa Cabdulqani iyo odayaashii xukumay in gabadhan xoog lagu guursado. Waad ku mahadsantihiin dhageysiga aad dhageysateen. Waxaan idinka codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay channelka aad saarto subscribe, like, share, comment